بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa saxaafadda iyo dhammaan saraakiisha ciidamada taliye ku-xigeenka iyo laamaha kala gedisan ee ciidamada iyo madaxda sharafta leh oo xiriboorka nagu soo dhaweysay. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. salaanka bacdi anigu waxa weeye aad iyo aad baan u fiicanahay alxamdulillahi rabbil caalamiin. muddo bil iyo waxaan maqnaa 4 casho ah. Djibouti ayaan maartay waad la socotaan waxaan u tegay caafimaad aad baan nagu fiicanahay hadda. dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan waxaan salaamayaa. waxaan leeyahay inay ka faa'iideystaan bisha Ramadaan oo khayr ka qabta oo inay cibaadaystaan loo baahan yahay. amnigoodana inay sugtaan oo ay amniga ka shaqeeyaan bisha Ramadaan maartay laga wada faa'iideysto amniga iyo cibaadada iyo waxaas oo dhan laga faa'iideysto. كل dadka reer Puntland taliye dawlad baa joogeen aad baan uga mahadcelinayaa. muddada aan maqnayn iyo shaqooyinka qabteen inay hadeen dardar galiyaan maartay sidii maartay shaqada amniga iyo maartay marka looga wada shaqeyn lahaa dadkuna maartay maslaxadooda ay maartay meel uga soo jeesan lahaayeen baan iyadana ku boorinayaa. saxaafadda mar labaad baan salaamayaa iyo mar saddexaad. wax hadal badan oo aan sii dhahay ma jiro haddii ilaahay idin ka dhigo taraag baan ka yimi beri ilaa saadame ayaa wixii warbixin oo guud aan rabaa haddii ilaahay idin ka dhigo inaan bixiyo moogtay ama aan ka hadlo wixii aan ka hadli lahaa. marka aad baa u mahadsantihiin qaabilaadda ay soo qaabisheen iyo soo dhaweynta ay soo dhaweyseen.